baa mahad leh halkan maanta aynu joognaa waa garoonkii stadium caasimadda jamhuuriyadda somalilan kolley waxaan ka hadli doonaa mawduuca HIV aidiska xanuunka ayaynu ka hadli doonaa waxaan dhallinyarada iyo bulshaweynta ma wada sheegayaa inuu yahay xanuunkaasu xanuun caadi ah oo aan laga sasin oo ilaahay keenay oo xanuunada kale caadiga la mid ah waxaabaan kolley anigu qabaa inuu xanuunkan wax yeelayo qofkan ka sasaya ee ka cararaya ee dhibta u arkaya waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay in lala tacaamulo oo macaamil lala sameeyo oo waxyaabaha xanuunkaas uu diidayana un laga ilaaliyo waxa uu ogolayayna lagu isticmaalo waxaan halkan ku boorinayaa dhallinyarada bahweynta sportska iyo bulshada dhammaanteedba in xanuunkaasu uu yahay qadar ilaahay uu keenay sidaa daraaddeed waxaan leeyahay qof waliba qofka xanuunkaa qaba inaan bulshada dhexdeeda laga takoorin oo dadku aanay takoorin oo aan la fogeynin oo aan laga cararin ayaan ku boorinayaa dhallinyarada waa xanuun caadi ah waxbaa lala cuni karaa meel baa lala seexan karaa guri baa lagula noolaan karaa hudheel baa lagala qadayn karaa dhakhtar baa lala geli karaa anugu waxaan leeyahay waa qof bulshada ka mid oo bulshadeenna ka mid oo la xanuunsanaya waxaan ku boorinayaa bulshada inaan dadkaa la faquuqin oon gaar loo saarin wax allaale waxa lagu kala qaado waa la garanayaa wixii lagu kala qaadon baa la iska ilaalinayaa laakiin waxa kaloo problemo xanuunkaasu dadka xanuun ku soo boodaya ama eryanaya maaha annaguna haddaan nahay bahda sportska waxaan ku boorinayaa dhallinyarada ciyaaraha iyo dhallinyarada guud ahaanba rag iyo dumarba xanuunka inaan laga boodin ee qofka qaba si caadiya walaalnimaa loo soo dhaweeyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa